كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii koob iyo soddonaad qeybtii koobaad ee barnaamijkeennii barbaarinta ubadka. maalmihii u dambeeyey waxaynu ka soo warramaynay waxyaabo fara badan oo markaa laga horumarinayo usamafalka waalidka, oo waalidka in loo samafalo ay markaa number 1 noqonayso. insha allahu tacaala maanta waxaynu ka bilaabaynaa qeybta saddexaad intay waalidku nool yihiin waxyaabaha markaa loo sameynayo. qeybta saddexaad baynu ka bilaabaynaa. waxaa jira markaa laba xaq oo hadday markaa iyaguna ay kulmaan la hormarinayo xaq. markaa waxa weeye haddii markaa ay kulmaan xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo markaa xaqii waalidka, oo tusaale ahaan waxaan markaa dee ilaahay aanu ogolayn waalidkii ay markaa ubadkii ay ka dalbadaan markaa inay sameeyaan, taa markaa waxaa la hormarinayaa xaqa ilaahay. waayo dee ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga inagu faral yeelay oo ina saaray inaynu waalidka u samafallo. marka waalidkii haddii wax xaqii ilaahayna saaray wax ka baxsan oo macsiyo ah hadday ubadkii ay faraan, markaa dee xaqi ilaahay markaa waa maxay la hormarinayaa. marka iyadoo meeshii aan laga saaraynin waalidkii dee in la adeeco, waalidkii in loo naxariisto, waalidkii in la maqlo, in loo samafalo, laakiin arrintaa waalidku ay soo kordhiyeen ee ilaahay xaqiisii baalmarsan lagu adeeci maayo markaa. waayo xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa laa daacata libasharin fii macsiyati illaah inama daacatu bilmacruuf. yacni waa maxay? qofka waxaad adeecaysaa intuu wanaag ku farayo, laakiin hadduu waalidka yidhaahdo dee waa maxay diintii ka bax, ama hadduu ku yidhahdo waa maxay salaada tukanin, waajib weyn ilaahay kugu leeyahay, hadduu waalidkii markaa kaa hor joogsado oo arrin macsiyo ah marka uu kuu soo bandhigo, xaqa ilaahay aad markaa samaynaysaa. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado fara badan ayaa markaa waxa uu kaga warramayaa suuratu luqmaan oo kale. haddii dee waalidkii ubadkii ama ilmihii waa maxay iyagoo hadday gaalo yihiin oo kale, hadday markaa ku qasbaan dee inuu diintooda raaco, ilaahay markaa wuxuu tilmaamayaa waa maxay inaanu arrinkaa aan lagu adeecaynin waalidka. laakiin haddana waa maxay in adduunkii loogu samafalo, waa maxay la isu duldhigo oo la wanaag loo sameeyo, aana meesha ka baxayn. wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tudichuma ba ilahay leeyahay, ha ku adeecin. hadday ilaa maxay shirki la timaadid oo diintii waa maxaad ka baxdid. ibnu kathiir waxa uu leeyahay yacni haddii ay dadaal badan waalidka ku bixiyaan, tusaale ahaan, oo dadaal badan ay ku bixiyaan qofkii inuu markaa diintooda waalidka u soo raaco, taas waa maxay dee ilmihii ama ubadkii waa maxay waalidkii waa maxay ka qaadan maayaan. laakiin waa maxay wasaaxibuhumaa fi dunya macruufa ay muxsinan ilayhima, laakiin ixsaan inuu u sameeyo waa shay markaa meeshii ku jirta. marka qaybihii hore waxaynu ka warramaynay haddii dee waa maxay salaadii sunnaha hadday waxyaabahaasi kulmaan waxaa la hormarinayay samafalka waalidka. laakiin haddii xaqii ilaahay weynaa iyo kii waalidka ay kulmaan waxaa la hormarinayaa xaqa ilaahay. marka waayo qeybta afaraad iyaduna waxa aynu insha allahu tacaala kaga warrami doonaa axaqu nnaasi bisuxbatika waalidaak. waxaa jira waxyaabo fara badan oo ibni aadamku ama insaanku ay marka aada ugu qaldamaan. waa maxay? waa cidda marka ay saaxiib iyo khaliil marka ay ka dhiganayaan, qofku nolosha iyuu saaxiib ka dhiganaya. marka taa dadku waa maxay aad bay ugu wareeraan. qof waa maxay qof u daacada, qof waa maxay wax kastoo u sheegan karo, qof waa maxay dhibaatadiisa waa maxay uu la wadaagi karo, wax badan ku qarsan karo, wax kasta wax noloshiisa ku saabsan qofka inuu helo, qof kasta aad buu u raadiyaa. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam insaanka kagamuu tegin ilaa in waa maxay gadgadoonka iyo qofka dhibaatada haysato ilaa inuu xalliyo mooye
rasuulku waa maxay wax kastaba inoo sheegay. marka haddii aad maanta aad raadinaysid, haddii aad marka aad ka fekeraysid, haddii aad marka aad ugu wareertay nolosha qof waa maxay aad saaxiib la noqotid, arrimahaaga aad waa maxay kala shuuraysatid, waa maxay saaxiib ku dhow aad ka dhigatid, waa waxaad markaa saaxiib ugu fiican oo cid ku dhow aad ka dhigan kartaa waa waalidaak. labadaada waalid ayaa cid lala saaxiibo oo wax kasta loo sheegto ayaa marka waa maxay ugu fiican. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska marka ay soo saareen Bukhaari iyo Muslim ee wadinayo Abi Hurayra, waxa uu leeyahay nin baa markaa nebiga u yimi. markaa nebigu waxa uu ku yiri man axaqu nnaasi bixusni suxbati, nebiga ilaahayow yacni cidda ugu wanaagsan ee markaan la saaxiibayo wa-ayo markaa, yacni qof ugu wanaagsan in la saaxiibo oo loo soo dhowaado oo waa maxay wax kastoo waa maxay laga waraysto, qofkaasi wa-ayo saxaabigaasi waa maxay nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam. markaa nebigu waxa uu ku yiri ummuka, yacni hooyadaa weeye. haddana uu ku soo celiyay nebiga ilaahayow, haddana nebigu waxa uu ku yiri ummuka, haddana uu ku soo celiyay haddana maxay nebigu ummuka. markii afraadba nebigu waxa uu ku yiri waa maxay thumma abuuka, aabbaha marka ayaa ka afraada. marka halkaa waxaan ka arkaynaa waa maxay saaxiibka iyo khaliilka nolosha kugu dhowaado saaxiibi kartaa waalidkaaga markaa ha noqdaan. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan ama ay yiraahdaan yacni anigu waa maxay waan ka kaaftoomay noloshana cid la saaxiibo, waa maxay oo aan arrimahayga waa maxay kala tashado aan u soo bandhigto uma baahniba anigu. halkaa iyada waxa aynu leenahay yacni wax dhibaato ah marka haba yaraatee waa maxay ma laha. laakiin waxaad ogaataa maskaxda iyo maanka aad mar kastaba ku haysaa labadaada waalid ma aha markaa kuwa ka maarmaya inay markaa waa maxay kula saaxiibaan, inay waa maxay markaa kula sheekaystaan, inay waa markaa ay kula tashadaan oo ra'yigaaga ay dhageystaan oo ay si fiican waa maxay kuu soo dhoweeyaan. iyagu waalidku mar kastaba kuwa waa maxay arrintaa waa maxay ka maarmaya maaha haddii marka adigu aad ka maaranto saaxiib aanad u baahnayn. marka haddaad u baahan tahay qof waa maxay wax kasta aad kala hadli wax kasta usoo bandhigan kartid, intaanaad saaxiib kala raadin, qof kaloo fog aanaad raadinin, waalidkaaga markaa waa maxay la saaxiib. marka waxyaaba badan noloshaada ka mid ah oo caqabado badan oo yimaada, waxyaaba kale cusub badan oo yimaada way kuu haagayaan insha allahu tacaala. qodobka lixaad waxa weeye anta wamaaluka liabiik, yacni waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala dee waalidku waa maxay xaq weyn bay ubadka waa maxay ayay markaa ku leeyihiin. xaqa waa maxay waana inagii soo sheegay inay xaqa markaa labaad yihiin. towxiidka ilaahay marka laga yimaado dee wacbudullaha walaa tushrikuu bihi bilwaalidayni ixsaana baa ku xigtay. marka haddii ay kulmaan, haddii xoolahaagii ay noqoto ee cidda aad marka aad siinaysid iyo hadday marka adigii ku noqoto, waxay noqonaysaa marka xoolahaaga inaad waalidka marka aad siisid. marka cid kastoo maxay baahi badan hadday joogto waalidkaada marka aad ka hormarinaysaa. marka xadiiska marka ay soo saaray imaam Axmed iyo Daawud iyo Ibn Maaja ee marka uu wadinayo Cabdullah ibn Amr ibn Caas ayaa waxa uu leeyahay nabiga ilaahay nin baa marka la u yimi, waxa marka uu ku yiri rasuulka ilaahayow yacni waxaan haystaa marka xoolo iyo marka waladan iyo wiil baa marka ii jooga, aabahayna marka waa maxay de xoolahaasu marka u baahan yahay oo maxay de xaajo iyo arrin marka ku taagan ayuu rabaa marka maxay ku qabsado. maxaan sameeyaa marka nabiga ilaahayow? nabigu waxa uu ku yiri yacni anta wamaaluka liabik, yacni adiga iyo xoolaha aabbaha waa maxay ayaa iska leh. adiga iyo maxay xoolahaagaba aabbaha ayaa marka iska leh. waayo nabigu waxa inna awlaadakum min adyabi kasbikum, yacni qofku wuxuu kasbado oo uu soo saarto oo maal gashado oo shaqaysto ubadkiisa waa maxay ugu fiican. marka nabigu waxa maxay fakulu min kasbi awlaadikum, yacni ubadkaasi waxa ay shaqaystaan waxa ka cuni kartaan marka ama xoolaha ay leeyihiin ayaa waxa la isticmaali kartaan. marka culimadu waxa ay yiraahdaan marka xadiiska waxay ka waramayaan yacni aabbuhu ama waalidku de ubadka waxa ka isticmaali kara xoolahooda inta marka xaajada iyo inta marka waa maxay uga baahdaan. oo marka nabigu leeyahay waa maxay de waa maxay liabika laama sama maxay laama marka waa maxay tamliik maaha qofku inuu xoolo iska wada qaadanayo maaha, waa lil ibaaxat, waa marka in loo baneeyay dee xaajadiisa marka inuu maxay ku guto. haddii marka uu faqiir aan waxba aanu haysanin in waa maxay ubadka ilaahay waa maxay ubadka u dhalay
xoolahooda in la isticmaali karo ka qaadan karo marka uu ku weydiisto kadib ayaa marka iyadan aynu ka qaadanayna. marka hadday kulmaan adiga iyo xoolahaagii iyo waalidkaagii waxaad marka hormarinaysaa waalidkaaga. marka qodobka u dambeeya casharkeena maasina waxa uu ka waramayaa haddii marka ay isu yimaadaan oo tusaale ahaan de xilligood wax jirta wax loo yaqaano marka de in waa maxay qofka adoon u noqdo oo kale ama qofka in la xoreeyo oo kale. inaga maanta halkaa waxa ku jirta yacni haddii waalidkaagii ay dhib culus soo gaadho oo kale, haddii waalidka lacago badan lagu yeesho, haddii waalidka maxay dee deyn fara badan lagu yeesho, haddii waalidka maxay la xidho oo kale oo arrin ku timaado dhacdo culus ku timaado oo waxay markaa jeel la geeyo oo kale, iyadana markaa waa maxay waxaanu leenahay iyadana xadiiska hore baynu uga tusaale qaadanaynaayo anta wamaaluka liabik, yacni waalidkana culayska ku yimi inaad maxay qeyb weyn aad ka qaadato ayaa marka iyadana loo baahan yahay. marka inahaas waxaynu ku soo koobaynaa waa maxay qofka haddii waalidkii ay marka ay ku faraan wax macsiyo ah laga adeeci maayo. qodobka labaadina waa maxay cidda kuugu dhow ee aad la saaxiibi karto arrimahaaga u sheeg soo bandhigan karto aad la tashan kartaa waa maxay waa waalidkaaga. xoolahaaga hadday noqoto iyo awlaadaada iyo ubadkaaga waxa marka la hormarinayaa waa maxay oo meesha iyaguna waa maxay kow ka noqonaya waalidka. marka intaas insha Allah taala maanta ku eekayn doonaa halkaasaynu kasii wadi doonaa insha Allah taala. wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa ahkam wa ilayhi marji'u wal ma'ab.